الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد أيها الأحبة درسك كصابسان midnimadu iyo mudnaanteeda waa mas'alo diin ahaan iyo caqli ahaan baa cad laakiin dadku markay ka tageen ayay ku celceliskeedu timi ummadda muslimiinta iyo midnimadeedu waa waajib sharci ah diin ahaan waa waajib nolol ahaanna waa daruura ijtimaaciya wa iqtisaadiya wa xayaatiya waa waxay keensanayso baahida bini aadamnimo waayo bini aadamku hadduu ururo oo midoobo tiradu iyo tayadu iyagaa xooga iyadaa dhaqaale ah iyadaa horumara iyadaa caqliya wax walba iyadaa ah markaynu eegno qur'aanku siduu uga warramayo nusuusta kitaabka qur'aanka kariimka iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ku soo aroray aad u tiro badan baa tilmaamaya asaaliib ama qaabab kala gedisanna wuu tilmaamayaa mar nusuus sariixa oo cad baa ku soo aroortay in la midoobo mararka qaarkoodna nusuus baa ku soo aroortay sheegaysa midnimada cagsigeedu inuu mamnuuc yahay marar kale nusuus baa soo aroortay waxyaabo layna faray oo aan suurtagal ahayn in midnimo jirta mooyaane si bini aadamku wax u fahmo oo dhan ilaahay wuu ugu soo bandhigay midnimada iyo wanaaggeeda iyo faa'iidada ay leedahay midnimadu waa quwa lisidiiq وخوف للعدو انت كحكته اما ولالك اتينا ما يسكدوا ديننا حوق باي وطهي عدو قنوا بقى جلسة فرقضوا يكرت سنانتنا وعدو داخلية هيئتك مخابراتك عالمية وحيليهن dagaalada dunida u dhaxeeya marka la eego waxay yiraahdaan xoogga ugu fiican ee wadan uu isticmaalaha waa subversion bay yiraahdaan waa at-takhrib waa dagaalaad guuleysata bay yiraahdaan adoo aan dagaalamin xoog ka bixin waxba ka bixin waa dagaalaad isticmaasho bay yiraahdaan ninka ay sahaysaan xooggiisa iyo tamartiisa iyo dhaqaalihiisa iyo caqligiisa صالحان waxay yiraahdaan book baa jira Chinese-ka hore qoray Tzuba nin la yiraahdo book ninka Chinese-ka qoray waxa la yiraahdaa Art of War qaabka loo dagaalamo markaa nin filosofa janan ciidan ahaan jiray la taliye dawladeed ahaa wuxuu ka warramayaa dawlad Itaaliya ama xoog yari sidee isaga dhicin kartaa cid ka xoog badan waxay yiraahdeen waxay taani u dhigantaa dagaalka la yiraahdo kung fu-ga nimankan la yiraahdo China Japan dagaaladan ay ciyaaraan kung fu-ga la yiraahdo waxay yiraahdaan ninka xoog badan hadduu ku helo saad yeelaysa waa nin xooga ku helay adna wada Itaaliyartay hadduu namarka feerka kugu dhufto bay yiraahdaan gacantaadu ma celin karto gacantaada kuma celin kartid mal xal waxa xal bay yiraahdaan seebad yeelaysa waxay yiraahdaan waxa xal inaad xooggiisa isticmaasho ninkan ka xoog badan leh xooggiisa inaad isticmaasho oo waqabkee bay yiraahdaan waxa weeyaan bay yiraahdaan inta aad nabarkiisa u gooyin karto u goo gacantu markay ku dhaaftana xooggiisa isticmaalo isa sii raaciun xaqii isagu xooggiisa u isticmaalay adna hore ugu sii riixun bay yiraahdaan
waxay dhahaan dagaalka koonfuugu waa qaabka loo dagaalamo waxay dhahaan dawladuhu qaab ay u dagaalamaan waxa ugu fiican inaad adigu dagaal gelin ee dawladda ama dadka ama bulshadaasi waxay isku hayaan intaad afuufto markay madaxa isla galaan aad huriso uun adigu marka xoogga iyagaa leh lacagta iyagaa leh wax walba iyagaa leh waanay kuu jabayaan marka waxay dhahaan art of warka dagaalada la galo dagaalka ugu qurux badani bay dhahdaan waa adigoo aan adigu ciidankaagu dagaal gelin xoog iyo xoolatoona kaa bixin inaad guulaysato macnaheedu waxa weeyaan cidda kale inaad furqa ku abuuri karto furqo baabka diinta baabka qabiilka baabka nationality-ga baabka caynkana baab dadkaasi waxay iskaga hor iman karaan inaad xoojiso haddaba shareecada islaamiga ahi taa cagsigeeda wax kasta oo bini aadam isku qaban karaa ilaahay xal inoogu raadiyey si midnimadeennu ay u jirto ugu horrayn ilaahay wuxuu ina leeyahy midooba yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ila waantum muslimuun واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم إلهي سبحانه وتعالى وحينات المامية وركوا إيمانك لغاها ليو الله كعب صدا مركا كوات cabsida rabbi uu xaq u leeyahay ka cabsada oo ha dhimanina idinku aan muslim ahayn kadib baa waxaa la yidhi dadkiina muslimiinta ahi xadhigga ilaahay wada qabsada oo ha kala tegina aayaddaasi dhagihiinna way ku badatay wadaad akhrinayana in badan baa maqasheen waxaana haddii lagu soo celceliyo la samayn waayo marka dambe waa laga daalaaba dadka badh baaba laga yaaba wactasimuuda markay maqlaan waa intii ay sheegi jireen inuu yidhaahdo weliba soomaaliga markuu yahay ilaahay wuxuu ina leeyahay war midooba oo ilaahay xadhiggiisa ku midooba ha kala tegina midnimada iyo wadajirka ilaahay nimca ka dhigay wadkuruu nicmata allaahi calaykum baa layidhi waxaad dib u xasuusataan nicmadii alla idin siiyey markaa ahaydeen kuwo kala tagan oo col ah oo ilaahay qalbiyadiinna isu soo dumay in ilaahay qalbigiinna isu dumo oo isukin keeno idin mideeyo ayaa ah baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala midnimada dhabta ah midowgu markuu dhaco lafteeda lama waayo dad khalkhalka bilaaba ee waltakum minkum umma baa ilaahay yidhi markaa midowdaan kadib waltakum minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr wayamuruuna bilmacruuf wayanhawna can ilmunkar waulaa'ika hum almuflixuun waar haydinka mid noqdaan baa ilaahay yidhi kuwo khayrka dadka ugu yeedhayo xumaha reebaya kuwo gubashada ummadda ay gubanayso joojiya oo insaan baa tiino khata la waayi maayo gaf la waayi maayo cid qaldanta la waayi maayo cid stop garayso joojisa waxaas oo wanaagga dadka ugu yeedha haydinka mid noqoto daa'ifadaasina baa layidhi mar kale haddana aayadda ku sii xigta ilaahay wuxuu leeyahy war taariikhda dib u eega oo walaa takuunuu kaaladiina tafaraquu waاkhtalafuu ha noqonnina baa ilaahay leeyahy sidii kuwii iskhilaafay ee kala tegey من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم انت أي أتمي عضيمه حق الرب وغيم هذا إلهي وحط صالين وقدق قرآنك إن بدن با إلهي أهل كتاب يرير بنو إسرائيل يوحي كل عائلة هيك والرمية رير بنو إسرائيل هذا عيدي كما أبترسين في عنا مركي أبترسين تحي يهودي مركي أبترسين شوكتو وإلما النبي إسحاق وإلما النبي إسرائيل يعقوبنا وين النبي إسحاقنا وين النبي إبراهيم وأنمن أنبياء أبتر صدا مركا أبترسين شوكتو هدنا إلهي قرآن كاين تاسو قور أردب أي بالغ ورميا مشكلة دوام محي ومشكلة دو مركا إلهي ودبر شيء ساد نوعا نقونسا إلهي مركا وحين لي والتاريخ دي هردبو إيغا وهلا من نقوننا سيدي كوي انت إسخلافين كالتقي iyagoo bayinadii ilaahay uu soo diray dhexdooda taalo kuwa noocaas baa ilaahay yiri cadaab weyn bay leeyihiin ulaa'ika lahum cadaabun cadiim kuwa nooca u dhaqma cadaab weyn bay leeyihiin baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala idan ayuha alaxiba bayinaadka qur-aanka ku jira ilaahay ka warramaya waxayna farayaan dadka muslimiinta inay taxta raaya waaxida
calan qura inay harsadaan liwaa'u llahi subxaanahu wa tacaala ilaahay hoostiis calankiis inay harsadaan inay ka tagaan axqaadda taariikhiga iyo dhibaatooyinkii soo dhex maray qabaa'ilka quraysh iyo ansaar iyo carabtuu nebigu u yimi oo qabaa'il weligood isdilayay bay ahaayeen dagaallada qaarkood 40 sannadood buu socday dagaallada qaarkood 5 sannadood buu socday nimankii 40ka sannadood isdilayay ayaa ilaahay bayinaad u keenay ku walaaloobaan oo ku walaaloobay waxaa laynoo tilmaamay inaynu ka tagnaa alaطmaaci shakhsiya madharhka siyaasiyiinta ama masalixiinta ama danta leh iyo awrka idinku kacsan baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waxaa laynooga digayaa alraayaat alcunsuriya isfaqooqista iyo iskala sarraysiinta bulshada muslimkii waa mid baa la leeyahay waa ilaahay wada addoomihiisii nin meel gaara laga abuuray ma jira aadan uunbaa wada dhalay ama ha madoobaata ama ha caddaato wa sancadii ilaahay subxaanahu wa tacaala kala foqooqitaanka joojiyaba rabbi leeyahy subxaana wa tacaala midnimada waxaynu ka dareemi karnaa carab markuu nebi maxamed u yimi calayhi salaatu wasalaam dad liita oo qaybqaybsan oo lama degaan deggan oo aan dunidu ku xisaabtamin bay ahaayeen wakhtiga iyagoo caynka ahayeen dunida waxaa ka jiray dowlado waaweyn oo taariikh leh oo falsafad leh oo aqoon leh oo ciidamo leh oo boqolaal kun oo ciidamo leh oo boqortooyin iyo system iyo nidaam idaariya leh iyana saxaaro cidlaa bay degganaayeen oo la istila uun nimankii nooca ahaabaa muddo aad u yar intay soomaaliya iminka dowladnimada iyo xornimada sheeganaysa in leeg ayay dunida ku qabsadeen intaa in leeg kontineeyo sannadood bay dunida ku qabsadeen waxaa layna farayaa marka waxdat alcaqiida inaynu caqiidada ka midowno diin islaam oo muslim laa ilaaha illa allahna noqonno waxaa layna farayaa inaynu tasawuraadka aragtida guud iyo afkaarta ka mid noqonno oo diin rumaysanno waxaa layna farayaa inaynu sharciga iyo qaanuunka ka midowno oo kitaaba la qaadanno waxaa layna farayaa cultureka iyo thaqaafaadka iyo siyaasaadka inaynu ka midowno saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidka macruufka aynu wada naqaano ina allaha yardaa lakum alaaa war ilaahay 3 buu raalli idinka yihi 3na waa idinla nacay idinlama rabo ilaahay wuxuu raalli idinka yihi inaa keligii caabudaan waa idan cidna ugu shiriig yeelin xadhigga ilaahay inaa qabsataan waa idan kala tegin baa la yidhi waxaa ilaahay idinla necbiyo aan la idinla rabin asbaabu tafaruq waxa keena waxa lagu kala tago waa maxay qiila waqaal kutirikutaanka inay iska daysaan dadku waxaan ay wadaan inta badan iyo fadhi ku dirarkan iyo xantan iyo waxaan la wadaa waa colaad buunbuunin iyo dadku inuu isa sii noco isa sii dilo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ka taga qiila waqaal kan baa la yidhi iyo waxan baa dhacaya kan baa sheegta joojiya waxaa kaloo joojisaan baa la yidhi karatu su'aal badnida waxaa kaloo joojisaan baa la yidhi idaacatu lmaal in xoolaha la lumiyo ama se la dayaco waxaa qur-aanku ina faraya waxyaabo la'aantood midnimo la'aanteed aan jiraynin marka la yidhahdo inama almu'minuuna ikhwa mu'miniintu waa walaalo dee walaalu waa dad midooba oo walaalku waa qofkaad markuu waxhelo faraxdid markaad dhibigaadhadna xadid markuu baahdo aad u gargaartid markaad baahato kuu gargaartid kaasaa walaalka ayaa ilaahay wuxuu leeyahy mu'minku haddaba waa walaal haddiiba ay khalal dhaco si uuna isu qabtaan faaslixu bayna akhawaykum baa la yidhi walaaladiin dhexdooda hagaajiya waxa uu nebigu sifaynayaa calayhi salaatu wasalaam dadyowga mu'miniinta tusaalahoodu mu'miniintu siday isu jecel yihiin ama isugu naxariistaan ama isugu hiloobaan waxay la mid yihiin buu nebigu leeyahay jidh qudha jidhku dareemada jidhku waa isku mid haddii meel jidhka ka midi ku xanuunto inta kale way ku kaaraysaa hadday faryaradaasi ku xanuunto caawa kaar seexan maysid hadduu wadnuu ku xanuuna waa lamid jidhku ma kala yaqaano
meel baan important ee xoog ugu xanuunso iyo meel baan aad u muhiim ahayn ee yar u xanuunsan ma yaqaano isku sibaad u xanuunsanaysaa wadnuu ku xanuunaya ka faryaradu xanuunaysaa isku sibay u taahaan marka kaarku ku qabto meel kasta oo nabar kaaga dhaca waa meeshii kale nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam tusaale xayiya nool oo bini aadamku uu fahmi karaa tusaale la inooga dhigay oo ajirka bini aadamka ee aan kala qiimaha badnayn ee meel kastoo xanuunku kaa qabto ku kaaraysa ayuu dadka muslimiintii la mid yihiin buu nabigu leeyahay oo haddii qayb ka mid a xanuunku ku dhaco jidhka inta kaloo dhami waa soo jeedaa waana u warwartaa waxuu nabigu tilmaamay muslimka sida laga rabaa inay tahay kalbunyaan dhismahan masaajidkan aynu imika hoos joognaa waa bulkeyti iyo jaajuur iyo sibidh iyo wax laysa saarsaaray markay halkaa yaalliin qiimo ma leh jaajuurka ama bulukeytiga haddaad xabad halkaa isaga daadiso qiimo ma leh waxay la mid tahay dadku markuu afraadda yahay laakiin marka la ysku dhiso daartaa adag ee roob iyo cadceed iyo wax walba aad ka gelaysaa buu noqonayaa nabi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam mu'miniintu waxay la mid yihiin kalbunyaani yashuddu bacduhu bacda sidii dhismaha badhba badhka kale uu xejinayo waxuu nabigu tilmaamayaa almuslimu akhu lmuslim waxa laaliya waxa waajibaad layna faray midnimay keenaan haddaynu sidooda u fulinno waxa laaliya waxa laynaga nahiyey tafaruq bay keenaan haddaynu ka tagno markaa waa midoobayna tusaale arkaanul islaamka shanta ahi midnimu keenaa waxaa u horraysa tawxiidka oo dadku inuu isku caqiide iyo isku mabda iyo isku diin noqdo tilmaamaya waxaa ku xigta salaaddu adiga iyo alle xidhiirka idiin dhexeeya laakiin waxa lagu faray salaadda inaad jamc ku tukatid markaasaa waxaa laguu sheegay taad jamca ku tukataa taad guriga ku tukato waxay dheer tahay 25 ama 27 darajo ma wax ka badan baad akhridaa markaad jamca tukanaysa markaad guriga ku tukanaysa maya maxaad samaysaa walaalkaa unbaad dhinaca ku qabataa dhinacuun baynu iswadasaa dhinaca aynu sasaaray daraaddeed ayaa waxaa la yidhi salaaddu way 27 jeer laabmaysaa ama way 25 jeer laabmaysaa macnaheedu waxa weeyaan mar kasta markaanu 5 goor isu nimaadno ee masaajid isugu nimaadno ee isa salaadno ee salaad isku xidhanno waa asbaabta maxabbada iyo walaalnimada keenta safka toosiyaa la yidhi haddii kale ilaahay baa qalbiyadiinna kala jeedinaya idan salaaddu waa shay midnimo keena markaasaa waxaa laynoo sameeyey salaad jamaaca ah oo xaafad kasta abaalkeeda ku tukanayso iyo salaad jumco ah oo xaafadahoo dhammi intay isugu yimaadaan ay meelkooda tukanayaan iyo salaad ciida oo magaaladoo dhammi ay sanadkii meel ku wada tukanayso iyo mu'tamar xaj ah oo dadka muslimiinta oo dhammi dunida jooga madax iyo culummo iyo siyaasiyiin iyo dhaqaalayahano iyo tujaar iyo cid walba isugu imanayso waa maharajaan tawxiidka laga muujiyo oo dunida oo dhan loo sheego labayk allahumma labayk labayk laa shariika laka labayk dunida oo dhan loo sheego rabbi inaanu caabudayno waa meel manaaficda tijaariga la isku weydaarsado waa meel dadka culammada ee aqoonta ku kala qaataan waa meel siyaasiyiintu ku shiraan waa meel la rabo ummadda muslimka iyo dunida koonayaasheeda intay isaga timaadda inay midowgeeda muujiso midnimadeeda iyo kalinimadeeda inay muujiso waxaa layna faray zaka ah inaynu isku filaanshiya muujinno oo baahidu ay dhammaato zakada haddii say tahay loo bixiyo baahi ma jirayso waxay yidhahdaan cashuuraha maanta la qaado waddanka maraykan bay yidhahdaan haddii dowladdu aanay zaka cashuur qaadin ay zaka qaadda bay yidhahdaan almost way isku dhadhow yihiin waxay qaadaan oo dhammi around 3% sakaduna waa 2.5 waayo cashuurta waxa laga qaadaayo quri waxa weeyaan xoolaha soo kordha laakiin zakada waxa laga qaadaa maca kuwii hore marka inaad inta cusub uun ka qaado cashuur iyo inaad waxoo dhan zaka ka qaadda way isu dhigantaa walidaalik ummaddu hadday zakadooda ay si fiican u bixinayaan oo maamul leh bahyi ma jirteen caalamulislaami dhammaanteed walaalnimadooda muuqan lahayd waxaa layna yidhi sanadka oo dhan bil dhammaantiin wada sooma
وبلو قف كستو مسلم الدريمو قف كباهان walaalkiisa kale uu quudiyo la isku soo dhawaado nolosha la wadaago idan waxay leenahay shariicada islaamiga oo dhamay waxay u samaysan tahay qaab dadka kulmiya oo midowgay ka wada qayb qaadanaysa waxa la ina faray markaynu iska soo horbaxno inaynu soo ma rabtaan inaad isjeclaataan baa leeyaysa salaama ma rabtaan inaad isjeclaataan isu hadiyeeya ma rab akhlaaqiyadka islaamku ina farayo dhami waxay keenayaan inaynu midowno wax laaliyo waxa diintu inaga nahyiday waa didul ijtimaacu waa waxyaaba keensanaya in dadku kala furqoobo oo maxaa ka mid ah waxa la yidhi hays xamanina oo isku nacaysaan haysiyasina oo isku xanaaqaysaan hayscaayina oo fisqiga gaalnimada uga baxaysaan wax allaaliya wixii keenayay inaynu isqabsanno hays dulminina waxaasoo dhan waxaa loo reebay inaynu mid noqonno haddaynan isxamanin oo iscaayin oo ismaagin oo isdacaayadaynin oo isyasin oo isdulmin miynan mid ahaanaynin يعني dadku waxa laga yaabaa marka la yiraahdo midooba inuu ka fakarayo siyaasiyiintii baan miday war idinku midooba siyaasigu ha dambeeyo inta masaajidka wada joogta ama magaalada wada joogta ama deegaanka wada ahi ayaa ka horeysa inay midowdo inta siyaasiyiinta iyo waxa kale intaan la gaadhin inay bulshadu caafimaad gaadhaaba loo baahan yahay bulsho qurunsan isma hayn karto markiiba waa kala dilaacaysa laakiin bulshada gudaheeda hadii la culo oo la nadiifiyo وبلشد لسنا ولا لا بين قرصة سادرة ديت أي شرع وحر رابي أورمي ووحيابها كينا يندتكس قبصة وكلا تجو وحكى له كم ذا وحياب الله ينفري إلهي وحلي وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين الله يا رسول الله تعالى لي منهجين هميدوب وضدوا كم ميدوبيسان حق على النقطة حكوا حاجة التنازع هيسقبرننا ما يسور تقلتي فإن تنازعتم باب قرآن كشرتيه طبعي بني آدم كواحد كم ده إنه وحسكو قبطه inaad wax ismoodsiisay inaad gar leedahay in kala ra'yi la noqdo laakiin shariicadu waxay inoo dhigtay nisaac qaab loo dhameeyo waligi nisaac ma taagnaanayo saddex hal midun buu leeyahay nisaac inaynu kala roonaano isu tanaazulo oo nin wax cafiyo forgiveness waxay gaaladu yiraahdaan al-af afigu qadaya siyaasiya buu galaa sidii al-Hasan ibn Ali uu sameeyay قضايا غوريغا بو غلا او الهي ليي هوانك هدا اسقبتان عفيه صفحيه عافسيه كان كولا دقما قضايا اقتصاديه بو غلا قضايات كدلك ابو غلا والهي قرانك انو تلماميو جروح اي وحاس marka dhacaan faman tasaddaqa fa huwa kafaratu la idan inad saafida waa war musalaha compromise inaynu meel dhax isugu nimaadno debaladnaad wax ka tanaasushaana wax ka tanaasulo inuu meel dhax isugu nimaadno iyana suuratul anfal ma saxaabadu markay waxoogaagii xoolaha isku qabteen bedar laga helay yasalunaka aan al-anfal qul al-anfal lillahi wa rasul markii la yiri waxa loo tilmaamay inta qaniimada say u qaybsanayaan la sheegay faasilihu dhata baynikum ma lagu yiri as-sulh labadaas haday sicon waayaan قضية سدحات بجرتو شرعي ونفري والتحاكم إلى الكتاب والسنة قرنق صدى لبدا قف وحودا الشيغان والله قرنقي لبدا قبيل وحودا الشيغان والله قرنقي سياسيين توحس الشيغان والله قرنقي دابا تنامدون با قرتو راعي دونتا dadku marka walgiina susudnaada shariicadu ma qabto ilaahay marka wuxuu inaga nahyinaya wala tanaazacu balaydi waraysa sudnaanina haddii nisaacu dhammaan waayo maxaa dhacaya fatafshaluu watadhaba riixukum fashilka luqada carabeed waxaa lagu yidhaahdaa dacfiga waa liidanaysaan haadiya waraababa waa idinka dhergaya
ummad kastoo xoog leh marka iyadu gudaheeda isqabatay isku jabto ayay cadowga u jabtaa ummad kastoo isku xidhan cadow ma jabiyo marka isku xidhantahay cadowgeedu ma jabiyo saxaabadii jabtay ilaahay kuma odhanin quraysh baa xarfaan ahayd oo meel kale idinka soo gashay waxa lagu yidhi huwa min cindi anfusikum mushkiladu gudihiinay ka timi baa layidhi taariikhda bini aadamka waxay tilmaamaysaa dowladaha dumaa intaan cadowga khaarijiga uu israaciyayo gudahay ka dumaan ilaahay wuxuu leeyahay haddaan nisaaca ka tegi weydaan waxaa idinku dhacaya dacfi watadhaba riixukum dowladnimadiinna iyo xooggiinnuna waa tegayaan waa taasi caalam alislaam oo dhan maxaa ka jira magaal baa intuu u yimi jabiyey maya caalam alislaam innaga isjabinnay gaalkuna dabku inala huriye mid qori inaga iibiya iyo mid ina amaahiya iyo mid yidhaahda adaa xaq leh horow soco waa ku garab taaganaya iyo mid yidhaahda qaanuunkan kugu taageeraya united nationka sidaa yidhi wuxuu doonayaa kugu taageero isna dabaduu kaa riixay markaad jabtayna wuu ku daawado wuu kugu qoslay weliba markaad xad jabkaagu gaadhayna wuxuu yidhi waxbaa kuu yaran dhiman oo wisaaya baad u baahantay hay-adaha midoobay iyo inay kula taliyaan waxaan idiin sheegayaa soomaaliya waxbarashadeedu dugsiyada hoose 900 oo saacadood buu ahaa curriculumkeedu 900 oo saacadood ayuu ninka yar elementary schoolka dhigtaa curriculumkiisu ahaa markay isdishay ee jabtay ayaa UNESCO timo waxay tidhi annaga idiin qoraynaa idinku dee waa waalateen ileene annaga idiin mayar qabno annaga idiin samaynayna manahijtii laakiin caqligiinnu rehabilitation buu u baahan yahay ma qaadi kartaane 540 saacadood baanu idinka dhigaynaa 540 saacadood syllabus ku salaysan ayaanu idin siinaynaa si aad wax u barataan idan markaad jabto waa lagu talinayaa si kastaba waa lagugu talinayaa ilaahay aayadda markuu inoo tilmaamay war waa daciifaysaan oo awooddiinnuna waa tegaysaa oo cadowgii ma idinka faa'iidaysanaya ha isqabannina ayaa haddana aayadda waxa lagu gebagabeeyey u fiirso wasbiruu ina allaha maca asaabiriin baa la yidhi dadku markay wada joogaan bini aadamku markastoo tiradu sii badato mashaakilkuna wuu la bataa ila bini aadamku qof waliba akhtaadiisii buu wataaye markastoo tiradu sii badato mashaakilkuna wuu la bataa dadka aan xalka aqoonini mashaakilku markuu dhaco sida loo xalilo dadka aan aqoonini waxay xal ka dhigaan nidaamka la yidhaahaa ina yareeya si xalku inooga yaraado kun nin baynu ahayn soomaha waa isqabannay haa mal xal isbari weyne 400 iyo 600 inoo kala jabiya marka nin waliba gruubkiisu ku farxaya waa inta isku ra'yiga haya mushkiladii baa soo yaraanaysa ilaa gruubkani markay hadhow isqabtaan maxaa xal ah waa ina yareeyadii inoo kala jeex weeyaan gooso intaadana intaydan goosanaya 200 baan na qaataa 300 ama 400 qaado ina yareeyay xal ka dhigaan dadkaan aqoonta lahayn bini aadamka si aqalku ku dambeeyay fikraya waxay dhahdaan ay mushkila timaada solution bay leedahay xal raadino mufaawadaadka aan badino wada hadalka aan badino xal aan raadino there should be a solution wa inuu jiraa wado mushkilada lagu xalili karaa saadaradeed inagu haddaynu Soomaalina waxaynu qaadanay dariiqa ayna yareeyada dawladii weyneed waa lagu heshiin waayay ina kala gooya gobolkeedu ina kala gooya waa ina yareeyadi reerka heshiin waayay laba sultaan u samee kuwa hoosaasi waa saddex aqal u samee waa ina yareeya xalkeenu hadduu qabiilka yahay hadduu dawladda yahay hadduu shirkadda yahay shirkadda xoolo la isku daraya say u buumuunsantay u shaqaynayso ayaa la odhanayaa labadii wadaad ee haystay baa isqabtayo way ku kala baxeen midna laba gaadh u qaatay midna laba gur u qaatay waa ina yareeya xalkeenu halka dunidu ay tahay mushkiladu markay dhacdo war mushkiladda xal ma u helaynaa ma jirtaa solution kaga bixi karna qaab aynu horo wixeenan xooggeeno inaan kala dirin inta mushkiladda ma ka saari karnaa meesha tan aqligu saasoo ha qumanaynu keeno laakiin inaga aqligeenu wuxuu keenay debaadiyaynu iskaga nooleen baadiya marka la isqabto dee gabadhun baa la yidhaahdaa naa awrka ii qabo intaad
heeryada saarto waxa ku gurato ayaa dabeetana bannaanka ilaahay kale ay badsiga guuraysaa ilaa waa dhul wada bannaan baayo meesha doonta iska degaysaa aqligii guuritaanka habay nagu jira waa labadiis qabtaaba inay awrta inoo kala furin ay yiraahdaan dabeetana uu ka tago aqliga bini'aadamka suubane ma aha dadka kama dhibadin dadka badhba moodayo Soomaalidu inay mushkilad doonto waxaan u arkaa Soomaalidu dadka ugu mushkilad yar leeynayeen waa dad isku afa isku diina isku dhaqana waxay ku kala gadisayeen oo badanaanay jirin yes waa isira dulmiyeen ama xoolay kala qaadeen ama dhib dhex martay dhibi waa jirtaa laakiin ma aha dhibta dunida ugu buuran mushkilaadka dunida ugu buuranna ma aha waa mushkilaad xal loo raadin karayo sida ogeed ilaahay aayadda wuxuu ku gabagabeeyay wasbiru in allaha ma'a sabirin war sabra baa la yidhi sabra waa qaabka mushkiladda loo xalilo ha kala yaacine sabra oo kiina xun u sabra oo dulqaata oo kala dambeeya oo wasbiru baa ilaahay yidhi in allaha ma'a sabirin idan ayuha alahibba quraanka ilaahay wuxuu inooga warramayaa taariikhda bini'aadamka quraanku wuxuu ka warramayaa taariikh gaaleed taariikh nebiyeed bulshooyin fiicna bulshooyin xuma qaar guulaystay qaar guuldaraystay jawaanibu taariikh dhammaanteed quraanka way ku taalaa ilaahay baa ka warramaya markii tusaalaha ilaahayna siinay waxa la inoo tilmaamay qaybaha bini'aadamka burburka ku keenay inuu khilaafku ka mid yahay ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ورسيدي كوي كلا تجي يكلا يعيها النقرنين با إلهي لي وركوي دين تودا كوكلا بحي يكوحا كوحا نقضيها النقرنين إلهي سوى يهود كورما يوحولي تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى واحد مودي ساينة ولا الصعدان لكن ويكلا تشيدان با إلهي لي قلبي يدود ويكلا تشيدان محل نقول علي هذا الشرع كان يراعي لما ورنين وحل ذلك بأنهم قوم لا يعقلون من كان استعمال باللي ويوم كعادي أبا وحكينا فرقدنا إن يدفتهي وذكركم إنه حوق يحوليه qofka bini'aadamkii isaga dhaqaalaha sameeya isaga cilmiga sameeya isaga aqoonta keena bini'aadam markaad hesho ayaad xoog heshay dunidu maanta waxay isu gubaysataa say u kala dad badantay say u kala xoog badantay China maanta dunida waxay doontaa bay dawladda China samaysaa lagama hadlo waayo marketka ugu ballaaran ee dunida jirta shirkad rabta inay marketka weydaana ma jirto waxa dawlad Yurub oo dhami waxa mashaakil China ka jira kama hadlayaan waayo waa market dhaqaale waa suuq baa mushtaraan cidina ka maarmin idan dadka badadiisu khayr baa ku jira mid dhaqaale iyo mid adduunyo mid waliba uu ku jira hadii iimaanu raacana khayr baa ku dhamaaday ilaahay wuxuu leeyahay marka dadka kala tagay waa aqli xumo sharciga ba ka kaalay marka sharciga ka timaado waa aqli liita aqliga ayna qaybiya inaga gaar ahaan ilaahay wuxuu leeyahay wa min alladheena qaaluu inna nasara akhadna mithaqahum fanasu hadda mimma dhukiru bih kuwii yidhi nasaaraanu nahay kristan baanu nahay ballan baan ka qaaday baa ilaahay yidhi wixii aan ballanka kaga qaaday qayb ka miday ilaabeen oo ka tageen diintooday badh ka dhaqaaqeen maxaa ku soo baxay فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى هير علاد بان دحدقنا إذن هدينو كتابك بدنا قادنا بدنا تورع علاد وين دحول ليس قاعدة دا سوحي حكونتا قريغا سيدا كودق ما وو بربراه لبدا ولا ليسان كودق ما وو بربران شركة دا سيدا كودق تا وو بربرتا في أدا عين كان كودق تا جماعة الدولة دا وقاعدة عامة عند المسلمين اتكستو دينتو وهي دينتو وحي لغو مدوبيا ينا فريسا قابكي لو مدوبيا بينو شيغيسا إلهي وحي ينو شيغيا مرك هدات سيدا يشان عقاب بان سودة جريا فرقضة بقى
qul huwa alqaadiru calaa an yabcatha calaykum cadaaban min fawqikum ilaahay wuxuu awoodaa inuu cadaab xagga sare idinkaga keenaa la yidhi iminka gaalkan maraykan soomaad aragay tornaadadun ku soo degayso magaalo iska joogta innaga wakhtiga roobku da'ayo dabayl baa dhulka ka kici jirtay cirtoob la yidhaahdo oo kor u kici jirtay magaalo iska joogtaa dabayshu cirkay ka soo degaysaa cirtoobtii baa hoos u soo degaysaa 400 kilometers per hour bay ku socotaa 400 kilometers saacaddii bay jaraysaa magaalada dhan xaashay u kala dhigaysaa gawaadhida taayir bay u kala dhigaysaa waxaba hal magaalay ku soo degaysaa dhulkay la samaysaa xashiishuun kudaafadaa la daadiyo kale ka dhigaysaa ilaahay wuxuu leeyahay balaayaan cirka idinkaga keeni karaa aw min taxti arjulikum ama dhulkaan idinkaga soo saari dhul gariir fayaad roobab maxaa la yidhaahdaa fulkaano balaayaan dhulka idinkaga qarxin waa laba noocoo wax loo cadaabo nooc saddexaad baa ilaahay inoo sheego wax loo cadaabo aw yalbisakum shiican wayudiiqa bacdakum ba'sa bacd ama inta kooxa laydinka dhigaa madaxa laysu kiingelin baa la yidhi kooxa inta laydinka dhigo ayaa madaxa laysu kiingelin oo maxaa dhacaya markaa wayudiiqa bacdakum ba'sa bacd qolaba qolada kale qadhaadhkeedaa la dhadhansiin waa idin iskumaadi maalinba reerunbaa reerka kala jebiya hadda reerna ma dhammaan reerna halkiisii kama guurin intaynu aakhira u dirnay unbaynu tiro badinna socankaa ma aha soomaali waxay istilaysay reer waliba halkiisii buu degan yihin cid madhatayna ma jirto laakiin wuxun baynu tiro badinnay intaynu aakhira u diraynay ilaahay wuxuu leeyay kayfa nusarifu alaayaata lacallahum yafqahuun ayuha alaxiba ilahay wuxuu leeyay fattaquu allaha waaslixuu daata baynikum لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام حلينو تلماميا وحي خير inoogu jiriyo midnimo inoogu jirto dhan hays xaasidina haysu caroonina haysu dhabarjeedinina war dad muslimo walaala ahaada war walaalka hadda isqabataan caradu 3 maalmood iyo ka badan in baa la leeyahay qofka binaadamku waa caroon karaa laakiin 3 maalmood waa muddo aqligu soo dego 3 maalmood haddaad qaadato waa muddo qofka caqligu uu ku soo degi karo simada inoo gaarka ay markaa waxay tahay wa inna haadihi ummatukum ummatan waaxida wa ana rabbukum fattaquun iyo facbuduun ilaahay wuxuu leeyay war hooy ummaddiinnani ummad qudhaati anna rabbigiin baanahay aniga iga cabsada haddaba ayuha alaxiba maxay inala gudboon sidee caalamulislaami dib loogu midayn karaa sidee bay u dhici kartaa ummadda muslimiinta inay dad walaalaa u noqon karaan si kooban waa inay diintoodii ku noqdaan waa inay diintoodii dib ugu noqdaan waxaan leenahay awal khutwa aynu u baahanay waxa weeyaan wacyu lumma biquwatiha wa biahmiyati waxdatiha ummadda inaynu ka dhaadhicinno xooggeeda iyo midnimadeediiyo intay leegtay soomaalidu waxay idhaahdaan geela aakhira xooggiisa la tusaabay idhaahdeen adduunka ilmo yaro carruurun baa hoggaamiya aakhiru xooggiisa arkaa bay soomaalidaa sheegtaa waxaa la mid ah ummadda dhan oo intay xooggeedii laga qariyey dawarsi tagtay shacabkii meelahaasuu soo dawarsanayaayo waa qaxooti dowladdu hay-aday dawarsanaysaayoo waa qaxooti shacab dhan oo isku raacay inuu dawarsi tago ummad dhan bikaamilaha min madaxweynaheeda ilaa iyo miskiinkeedu uu ku maqan yahay inuu musaacadaad soo helo iyo taakula inuu soo helo oo xooggoodii laga qariyey waxaan leenahay midnimadu waa nuqta alasaasiya waa meesha ay u baahan tahay inay calaa sabiil inaynu waaqacan mu'limka ah noloshan cidhiidhigee maanta muslimku ku jiro waa dariiqa koowaad ee lagaga bixi karo idan waa in ummadda muslimiinta dib aynu u xasuusinaa markay iqliimnimadan iyo gobolaysigan iyo qabiilaysigan iyo waxa kani waa waxa dadka baabi'iyey soo ma ogidin dunida muslimka ah gaalka hortii inaanay weligeed kala xidhnayn isticmaalkaa xuduudda la yimi caalamulislaam oo dhammo isku furaa
macnaheedu ma waxa weeyaan hal dawlad u ahaa maya iyadoo kala dawlada ah ayaa maanta haddaad Mombaasadan idinla joogo maanta haddaan joogo dawladda Mombaaso baan ku biirayaa la odhan maayo burcadka timiyaalkaasi nin muslim ah oo dalkan yimi oo dadkan ka tirsan u baan ahaanaya xukunkan baanan ka mid noqonaya haddaan ka tago Indiya tagana dawladda muslimiinta ee Indiya joogto baan ka mid noqonaya shacabku ma lahayn xuduud markaa walaga yaabaa nimanka siyaasiyiinta inuu nimbo in xukumayo dawladnimadiisu inta gaarsiisnayd laakiin shacabku xuduud ma lahayn wuu isku furaa ibn Battuta intuu ka yimi Spain iyo dhulka ayuu Indiya gaarkeeda meelaha wasiir ka noqonay dhulkan oo dhan maray idan waxa koowaad aynu u baahanay waxa weeyaan gaalku markuu caalamul islaami imanayay kow qofka bini aadamka marka la raba in la qalo dhakhtarku muxuu sameeyaa adoo nool miya mid lagu marin karaa maya marka hore irbad suuxisa la yiraahdaa lagu mudaya waa lagu suuxinaya markaad miyir beeshana shaqa laga qabanaya saxanka ma aha gaaladu waxay isticmaaleen caalamul islaami way suuxiyeen oo aan طريق العقل والافكار وسكول kan iyo waxan la inoo dhigay waxan waa la inagu suuxiyay wixiisa lagu dhigay markaynu suuxnayna waa la ina qalqalay xarijimun buu jeexjeexayn oo yidhi naasina halka ma dhaafi kartaa qoladaasayna halka ma dhaafi karto waxan xarijin ku yaala caalamul islaami oo dhan gaalkii Faransiis iyo Ingiriis ee inooga yimi Yurub ayuunbaa intuu soo socday xariiq jeexday oo yidhi qoladii naasina xagga kama talawdaan qoladiina xagga kama talawdaan markaynu nidhi waa xorownayna intii baynu ku qanacnay qolo waliba waxay tidhi xariiqdayada cidi kama soo gudbi karto xariiqdii gaalku u sii jeexay ayuu sii ilaalinaya idan waxaynu u baahannahay inaynu marka hore al-umma al-islaamiya dib u barro isagu wuu israadaysanaya Yurub oo dhan oo kala af oo kala diin oo kala dhaqan buu rabaa sidii loo midoobi lahaa inuu sameeyo innagana waa la sii kala yaacinayna waxay tahay inaynu wacyiga midnimadu iyo qiimaha ay leedahay iyo xoogga ku jira iyo waxtarkeeda inaynu dib u noolayno Soomaalida mahmaaheeda waxa ka mid ah far kaliye fool ma dhaqdo bay dhahay foolku waa wajiga farqo laakiin shanta farood haddaad mariso waa maxay waa taqi karaysaa waa mahmaa tilmaamaysaa wada jirku qiimaha uu leeyahay gacmo wada jir bay wax ku gooyaan bay yidhaahdaan tusaale waxay inoogu filan hadaynu taariikhda in yar un dib u noqonno Andalus maxaa ka dhacay 800 sannadood bay muslimiin ka talinayeen waana laga soo saaray ma iyagu xooga laga soo saaray maya midba mid siduu u tumayay isu hayeen ayay magaalo u kala go'day dabeetana maalin walba magaalo la qabsado ta kale uma gargaarto ilaa magaalada kale waa la cole say magaalo u kala hayd ayaa loo kala gooyay taariikhda qadiimka maxad ka dooni teenaga wadankeena eego wadankeena maxaa ka jira yaa inoo yimi waxabashay inagu soo duushay ma gaala kale inagu soo duushay inaga isku soo duulayo aan reerna reer rabin inuu la dago tuulana tuula rabin dabeetana intay inoo fakareen bay waxay yidhaahdeen gobollaa u baahantiin intii isku reeraba oo see la yeelayaa xarijimihii hore dee reeruhu ma degaane xarijimihii baynu iminkana isku dilaynaayo garan laanay saynu kala xadaysano ilaa haddaan dhaha baheblaaye xagga amar baheblaaye xarijin u jeexnayd ma jiray adhigeeday wadatiyo geeleedoo kolba dhan bay u socotay marka waynu dhahnaa ceelkan nagaa lahayn iyo geedkan reeraha iyagaa daaqi jiray iyo gobolkan bay tuuladana raacaysaa iyo kan bay raacaysaa waynaynu isku dilaawo intay nolosha ka hadhay waxaa ku filan khaliijka maanta waxaa ka yaalla liibiya suuriya مصر maxaa ka jira caalam islaami maanta waxaa ka jira inay yareeyadii xalka ka dhigayaan ururkii 6 ahaaba inuu 3 rabo inuu sii noqdo in hoos loo sii socdo ilaahayna quraanka wuxuu ku yidhi in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha gaalada ilaahay ka warramay iyo intaan muslimka jecelayn
haddii wanaag idin helo way ka xumaanayaan buu waa la leeyahay hadda ama midowdaan ama isku soo dhawaataan ama caynkan ma jecla iyagu kaa haddii xuma idinku dhacaanna way farxayaan innaga lafteennaad mooddaa qaarkeen inay sifadii gaallada ilaahay ku sheegaya inay yeesheen reer hebel hadduu jabo haddaad faraxdo haddii uu guulaystana aad naxdo waa sifadii gaalnimada laga sheegaya ilaahay wuxuu leeyahay gaalka dhaqankiisu wuxuu yahay haddaad wanaag heshana waa uu ka naxayaa haddaad xuma kugu dhacana wuu ku faraxsan yahay ayuha alaxiba dadka badh baa nusuustii markay arkeen in la baaba'ay ayay nusuustii sharcigaa si qaldan u adeegsadeen waxay dhahaen nebigaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ummaddaydu way qaybsami doontaa yuhuud baa qaybsantay oo nasaaraa qaybsantay ummaddayduna 73 bay noqon doontaa marka waxaan socdaa buu ku leeyahay waa aakhiru zamankiiyo 73 baa la noqonaya oo nebigu wuxuu ku yidhi 73 islaag bay noqonaysaa buu kugu yidhi يعني waxa laga yaabaa 27 marka la isku daro inaanay 2,000 oo qof noqonin inta kale oo dhabin inay hal firqa qura noqoto ahlus sunna wal jamaa siwaad al a'dam lil muslimin minority aad u liitayna yihiin al firqa dalla la xisaabinaya walidaalka adiga waxa ku saaran qadarka kama hortagi kartid laakiin waxa ku saaran wuxuu yahay inaad ballaadhiso oo naaxisid firqada saxda ah 73 bay u qaybsamaysaa macnaheedu maaha waa la iska kala tegayaa macnaheedu maaha 73 kuwa mar quray wada joogayaan yaa inagu yidhi 73 kuwa hadday wada joogayaan armay qaar kuwii baaba'ay hore tagay yihiin qaarna kuwa soo socda yihiin yani sharti maaha 73 kuwa mar quray wada joogaan idan xadiidka waa laga yaabaa min xayth as-sanad inuu asaxay ama la xoojin karo laakiin macnaheedu ma aha sida dadka baray u fasirayaan أما ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ومحاك ودي دي سواد الأعظم كونوا كبيرو إلا من رحم ربك أنت الربي ونحرستي إنه السواد الأعظم كونوا نغضه إذن أيها الأحبة warbaahintan ay leeyihiin raashenku Sputnik ma la yiraahdaa ay waxay soo saareen taqriir waxay yiraahdeen ماذا سيحدث إذا اتحد العرب ما حد دون إذا كان عندنا بيدا هدي عربي مدودة هذا مسلم كردن ماها وأنت عرفتها هذا هدي عربي مدودة ما حصابح لها هذا سيدة قضبة صوص عضاء من لها هدي عربي مدودة الناتج القومي GDP أنك وحصار كوطنك وحنا قندونا 5 تريليون 990 بليون دولار بنا قندونا يعني إنتاج كده محلي وحصار كمركز عرب لا يسكت روح نقونا حوالي 6 تريليون ودو سنة كيبا وحنا بكبضنا ندونا قرب إليه مريكان يا تشاينا يا الاتحاد الأوروبي مركز وطن كأفراد الدنيا وكل قالوا وين بين قندونا dhulka ay degayiin intay leegtahay haday isku darsadaan bay dhaayeen ta carabta sheegata 13 milyan iyo 500 oo kun oo kilomitir murabbac bay leeyihiin dhul ah sukaanta degani way misadadkoodu waa 385 milyan wadanka saddexaad ee dunida ay noqonayaan China iyo India qura carab ka badanaysa marka la isku daro wadanka saddexaad ee dunida ay noqonayaan ciidankoodu intuu leekaanayaa bay yiraahdeen ciidanka carbeed bay yiraahdeen waxay imika haystaan hadii la isku daro 4 milyan oo askari 9,000 oo diyaaradood oo dagaal 4,000 oo diyaaradood oo helicopter ah 19,000 oo dabaabadood iyo 50,000 oo gaari dagaal bay haystaan bay yiraahdeen waa inta inagu isku dildilayna una la isugu duulayo waa ciidamada dunida ugu xoog badan wax ku dhadhoobay soo baxayaan dhulkooda beeruhu muxuu noqonayaa bay yiraahdeen 84 milyan oo hektar ayaa Suudaan oo qura ka abay yiraahdeen dhul beereed la beeri karo
taa macnaheedu waxa weeyaan bay yidhaahdeen suudaan hadday beertaan 760 milyan oo tan oo sarreenay soo saari karaan sanad kasta 370 milyan oo neef oo lo ay ku beeri karaan 410 milyan oo neef oo adhiyay beeri karaan 850 milyan oo digaagay samayn karaan waxay yidhaahdeen saxaaraha liibiya oo qura 8% ka mid ah haddii lagu xidho maxaa la yidhaahdaa solar system haddii lagu xidho 8% saxaaraha liibiya oo keliya 20 milyan oo megawatt hour buu soo saaraya yacni dunidu laydh uma baahna saxaaraha ku yaalla liibiya 8% ka mid ah haddii loogu xidho bahalkaasi dunidu waxay nal u baahantoo dhan iyaga sabalay garayn kara bay leeyihin waxay tilmaamaan shidaalka dunida 24 milyan oo barmiil bay maalin kasta soo saaraan macnaheedu waxa weeyaan waxa shidaal dunida laga soo saaro thuluthkeed ayay carabi soo saartaa wax ku dhadhow zakada bay yidhaahdeen xoolahooda 2.5 ka ah xoolaha maxfuudka oo qudhee bangiyadooda yaalla haddii laga bixiyo 29 milyaar 29 bilyan oo dollar oo zakaa baa sanad walba ka baxaya iyagu dee zakada cidda la siinaya ma yaqaaniin xaggii dhismahay ula kaceene waxay yidhahdeen haddii dhismo lagu dhiso sanad kasta waxay dhisi karaan bay yidhaahdaan 25 magaalo oo min 1 milyan oo qof ku nooshahay oo 10 dhakhtar oo midkiiba uu qaadi karo 550 sariirood oo leh 20 iskuul oo iskuul kasta uu dhigan karo 3,000 oo arday oo leh 3 madaar oo 10 milyan oo qof sanadkii ka soo degi karto oo leh 7 jaamacadood oo jaamacad kasta 25,000 oo qof dhigan karto yani xoogga carbeed waa kaa waa carab qudhayn ka warramayna muslimka ma warramayno 86 dowladood oo muslima jira 56 ka mida baa ku jira qoladii maalinta dhawey jiraysay ah tacaawun alislaamiga ka mida مساحة دولك almost ولا 160 مليون أو كيلومتر مربع مركز الاسكندر مسلمين تا إذن أيها الإخوة حقنا إني نسيد أورطة آخرة أرقنا ما هي وحنو باهنا إني نمدين حق هذا تصنعين تيدوني ده شوغان حتى أنا إننا وباهنين عالم الإسلام النكلير باور وهايستا وأقونيها وهايستا oo dhalin wuu haystaa oo dhaqaale wuu haystaa oo dhul wuu haystaa oo xoolo wuu haystaa oo wax bini aadam uga baahan yahay dunida ku nool ma jiro aadanaha kale wuxuu dhan uu ka maarmi karaa haddii aqli uu yimaado shayga labadan tilmaamina waxa weeyaan الشعور بالمسؤولية أمام الله وأمام الشعوب dadkeenu inta wax garanaysa inta wax fahmaysa inay qaado mas'uuliyada aakhira in la weydiin doono ضيع dadka iyo ummaddu inay ku qabsan doonto ilaa waxaynu u baahannahay inaynu tarkiisina alqawaa'im almushtaraka maxaynu wadaagnaa inagu waxaynu tarkiisina maxaynu ku kala gadisanay inagu kaasaynu ka warraynay inagu iyo reer hebel waxaasaynu isku qabanay waxaasaynu isku haynaa waxaasaynu isku intaynu dadka u sheegnaa waa intaynu isku khilaafsanay waxaynu hilmaamnaa وحلالية وحين وداقنا دمانتيد وحين وباهنا إنينو برانو إناقو كمسلم هان يسيبك كصومالي هان ثقافة الحوار ورأن استل معنى ما هان وضا هذا الله معناه إنين وضا هذا لكرنو إن كحقو كمقية كحق هياباي وضا هذا لكران إن ليسو عقلي علين كرو إن لدودي كرو إلهي الدين تسمركو كورمي وحولا يدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن تدك حكمة ويا واني هذا الدود نغطنا الدود في عن الدود نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وقال هذا الله هذا يا إلهي وحيد واحد كتر هذا وقال وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ويعد هاي نبي محمد قال هذا كيبا هنون كسغنا سكيبا بعد كسغنا واللوغي نبي محمدنا حق بكسغنا عليه الصلاة والسلام قال أنا بعد بكسغنا لكن سيد دوت دلو وداقا إلهي وحيد واحد كتر هذا أنا جاي يدين كم متكرون بحق كسغن قولنا باطل كي كسغنته ده أنك وضع نقاشنا أنك وضع هذا الله نك الصومالي أنا بقر لهم حي ولا هذا يا أبو تاجي حقيقة أبوه يا محوشي
waxay sheegaynaa inaynu wada hadallo inaynu waxaynu isku khilaafsanay ka wada hadallo in waxa inoo dhaxeeya aynu ka doodno inaynu mushawarada baranno inaynu dulqaadka baranno inaynu deganaashiyaa baranno inaynu saraaxada runsheega baranno runta waa lagu walaaloobaa waayo waxaad ogaanaysaa walaalkaa waxa dhabta uu tirsanayo mujaamalada badan markay joogto doodu ma fiicna waxaan leenahay marka waxaynu u baahannahay wacyigelin badan iyo thaqaafatulxiwaar inaynu dib u baranno xooggeenna aragno waxaynu hanti iyo dad iyo dunyaba haysanno inoo muuqdaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin idhaahno idan ayuha alaxiba mawduucakani waa mawduuc aad u xasaasiya waa mawduuc aan deris iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 toona ku dhammaanaynin waa mawduuc ilaahay kitaabkiisa inta aayad ku soo aroorto qura haddaynu ka warranno ee ka warramaysa midnimo iyo waxa taageera maalmo ay noqon lahayd in la tafsiiro laakiin waxaan ku talagalay maadaama uu sheekhu doortay in ahmiyada waxdada aan ka warramo waxaan ku talagaluun inaan su'aal idin weydiiyo caqligiinna su'aal ku abuuro idinkuna aad noqotaan dadka walaalayn lahaa sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin